madal bilan boqoran oo badiba kulmisay haldoorka salaadiinta uqaasha waayeelka iyo waxgaradka kala duwan oo ka kala yimid gobolada dalka Soomaaliland ayaa ahayd calaamasaarka boqor Maxamuud Axmed Liibaan iyo Caaqil Xuseen Axmed Cabdi oo ka qabsoontay degmada Ceelifeen ee gobolka Sanaag. munaasabadan oo ahayd munaasabad maqaamkeedu aad u sareeyo ayaa wax ka soo qayb galay badiba madaxa dhaqameedka deegaanada Soomaaliland, shacabweynaha degmada Ceelifeen, qaar ka mid ah mas'uuliyiinta heer degmo iyo marti sharaf kale oo aad u tiro badan kuwaas oo soo buuxiyay madashan lagu calaamasaarayay boqorka iyo caaqilka. waxaana ugu horreyntiiba hadallada u kala dambeeyay madax dhaqameedkii iyo marti farashkii madashaasi ka soo qayb gashay oo dhammaantoodba si isku mid ah u soo dhaweeyay boqorkan cusub iyo caaqilka, iyagoo ugu duceeyay in alla xilkaasi ku asturo. waxaana hadalladoodii ka mid ahaa sida tan: waxaan soo dhaweynayaa dhammaan isimada iyo shacabka reer Soomaaliland ee ilaa ayaamihii u dambeeyay u soo gucleynayay si ay noogala qayb qaataan haddaanu nahay reer Ceelifweyn caleemasaarka boqor Maxamuud Axmed Liibaan iyo Caaqil Xuseen Axmed ba waan idin soo dhaweynaynaa dhammaan marti sharafta. annagu waxaanu nahay reerkii raastii soo xushay boqor Maxamuud Axmed Liibaan Cumar iyo Xuseen Axmed Cabdi. haddii aanu reerkaan nahay martida loo yahay marti sharafta loogu yimi annagaa dalbannay, annagaa gurigan munaasabadan ballaaran annagaa ku talagalay. waa soo dhoweynta wufuudda sharafta badan ee hareeraha meel dheer iyo meel dhowba ka timi, aad iyo aad baanu u soo dhaweynaynaa. arrintaas labada boqorka iyo caaqilka lagu soo doortay haddaanu nahay beesha Sacad Yunis oo beesha hadda halkan dariis baa ka yeedhay, beesha Jibriil Xasanna waanu la garanay haddaanu ka mid nahay. waxaan halkan maanta si farxad leh ugu soo dhaweynayaa dhammaan marti sharafta ka timi gobolada kale ee dalka oo aanu ku caleema saarayno boqor Maxamuud Axmed Liibaan iyo Caaqil Xuseen Axmed. aniga oo ku hadlaya uqaasha Ceelifeen afkeeda ama habar lamaan boqorka iyo caaqilka waanu soo wada xulanay waana soo wada dooranay. waa nin mutacalida, waa nin diin leh, waa nin hawsha qaban kara. waxaan leeyahay allah ku barakeeyo adiga iyo caaqilka waan soo dhaweynaya. dhinaca kale anigu nin dareen soo musabatana waan ahaado reer Liibaan Cumar iyo reer askar ahaado waan wasikii sheegayaa. intaa kadib waa duco iyo dardaaran. waxaan leeyahay waa idin ducaynaynaa xilkaa aad maanta qaadeen. xafladan bilan ee boqoran ee saaka aynu isugu nimi oo aynu ku boqorayno boqor Maxamuud Axmed Liibaan Cumar iyo caaqilka beesha Muuse Samatar Caaqil Xuseen Axmed. maanta waa maalin weyn, waa maalin farxadeed, waa maalin qiimo gooni ah noole haddaanu nahay gobolka Sanaag, waa maalin qiimo gooni ah noole degmada Ceelifweyn, waa maalin qiimo gooni ah noole degmada Garadag galbeedka Sanaag. dhammaan waa maalin qiimo gooni ah noole. dhammaan dadka halka yimi ee u yimi inay nala caleema saaraan boqor Maxamuud Axmed Liibaan iyo Caaqil Xuseen Axmed Cabdi, waxaan leeyahay soo dhawaad. madashu waa madal duco iyo dardaaran. ugu horreyn waxaan u ducaynaynaa boqorka iyo caaqilka boqor Maxamuud Axmed Liibaan Cumar iyo Xuseen Axmed Cabdi. boqorka iyo caaqilka ilaahay baa doortay, waxba moodaaba laba nin oo israaci kara weeyaan. boqor Maxamuud Axmed Liibaan iyo Caaqil Xuseen waan u baarigaynaa, waan soo dhaweynaynaa, waan ka aqbalay reerka keenay inoo keenay dhammaanteen. aad waxaan ugu mahadnaqayaa xafladda tan qiimaha iyo sharafta weyn ay ka muuqato ciddii soo agaasintay, guddidii soo maamushay. aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa. mahadda kadib mar labaad waxaan u mahadnaqayaa
boqor maxamuud axmed liibaan iyo caaqil xuseen afyare. waxaan marka ugu horraysa halkan uga ducaynayaa boqor maxamuud axmed liibaan iyo caaqil xuseen axmed cabdi. waxaan leeyahay ilaahay haydu ka asturo xilka. intii iga horraysay ee halkan ka ducaysayna ducadii ay u duceeyeen allah ha u aqbalo. sida la sheegay waa maalin qaali ah, waa maalin dadka ilaahay isugu keenay inagoo ku midaysan 6 gobol ee Soomaaliland. waxaa halkan maanta lagu caleema saarayaa waa inuu joognaa boqor maxamuud axmed iyo jiif caaqil xuseen axmed. waana si gaar ah ugu saaxiibnahay loo soo doortay waa qaadanay waana la ansiibay runtii. soo dhowaada madaxda dhaqanka ku soo dhowaada. intaa dabadeed waxa weeye hambalyo baanu leenahay. markay sidaa tahay waxaanu leenahay boqorka iyo jiif caaqilka. boqor horta waxaanu ku leenahay laydhkii gobolka Sanaag si fiican baad u shidbay. nabadda ceelaf weyn xilmi weydana maanta u qaadanaysaa laydhka. aad iyo aad baan u hambalyeynaynaa boqorka iyo caaqilka. maanta aynu halkan munaasabadoodii isugu nimi. runtii sharaf weyn bay noo tahay anigoo ku hadlaya afka dhaqanka gobolka Sanaag, sadalada guud ee gobolka Sanaag dhammaan afkeedii ku hadlaya. waxaan leeyahay soo dhowaada. ilaahay wuxuu siiyey cilmi iyo qurux. aayadda quraanka waxaad ka arkaysaa in afar wax lagu doorto. boqortooyo iyo madaxnimo soo jireena, xoolo, cilmi, golo joog wanaagsan oo qurux ah. waxaan anigu aan markhaati ka ahay boqorka iyo dee caaqilka reer ku soo doontaba inuu afartii sifo ku sibaysan yahay. waxaan leeyahay waxaan marag ka ahay oo markhaati ka ahay maxamuud axmed liibaan cumar inuu diin leeyey oo maadi leeyey oo aqoon leeyey oo ragannimo leeyey oo deeq leeyey oo dul leeyahay oo duunyo leeyey. waxgaradkii kala duwanaa ee beesha maanta aynu caleema saarayno boqorka iyo caaqilka ka soo jeeday oo inoo soo bandhigay rabitaankooda iyo siday ku soo xuleen. waxaynu leenahay boqolkiiba boqol annaguna waa idinla qaadanay waana u qalmaan inaad hawshan u soo xushaan. boqor maxamuud axmed liibaan iyo caaqil xuseenna waxaan leeyahay ku soo dhowaada madax dhaqameedka Soomaaliland. afar qodob baan u soo baxnay annagoo guddoonkii dhaqanka Soomaaliland oo Hargeysa joogna ayaa casuumaadda boqorka caleemasaarkiisu ayna soo gaadhay. salaadiinta guddoonkoodii waxbaan isweydiinay. wixii aan isweydiinay waxay ahayd inaannu u baxno ceelaf weyn iyo gobolkii ceergaabo Sanaag oo aan ugu soo baxno boqor maxamuud axmed liibaan. hore waxaad u arki jirteen ee laba doorasho oo isku sidkan, laakiin maanta halkan waxaa ka dhacaysa laba caleemasaar oo isku sidkan. ilaahayna waxaan uga baryaynaa inay noqdaan qaar deegaankooga iyo dadkoodaba anfaca. waxaynu ku koobaynaa duca iyo dardaaran. aad baa halkan looga hadlay, aadna waa loogu duceeyey boqorka iyo caaqilka. aynu halkan reerku soo xulaynana caleema saarayno. waxaan aniguna la qabaa oo ku koobaya waa goor dambe intaa loogu duceeyey, intaa lagula dardaarmay. waxaa mahad iska leh marka koowaad ilaahayga weyna waaxidka halkan inoogu soo kulmiyey isugu keenay. mahadda labaad waxaa leh salaadiinta iyo boqorrada iyo garaadada waasyada jiif caaqilada guurtida haweenweynaha ayaa mahadda labaadna iska leh. mahadda labaadna iyagaanu celinayaa. alxamdulilah rabbilcaalamiin.
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد marka hore ilaahay baa mahadleh kulankan wanaagsan isugu keenay nabadgelyana inoogu dhameeyay ilaahay baa mahadleh marka xiga waxaan u mahad celinayaa dhammaan intii ka soo qayb gashay magac kasta ha kaga soo qayb galeen safarrada dhaadheer qaarkood u soo mareen gobollada fog ee Soomaaliland dhammaantood isaga yimaadeen waxaan kaloo u mahad celinayaa dadkii qabanqaabada xafladdan lahaa rag iyo dumarba oo runtii muddo bil iyo dheeraada ka shaqaynayay inay xafladdan suurto gasho gabagabadii xafladani waxaa lagu caano shubay boqor maxamuud axmed liibaan abdul jaamac maxamed laanta afka Soomaaliga CBA degmada Ceelafina gobolka Sanaag